maxay sababta Itoobiya xoogga u saarayso gaadiidka ku shaqeeya korontada sanooyinkii la soo dhaafay waxa ay qorshe u qaatay Itoobiya in muddo 10 sano ah la soo geliyo wadanka gawaadid ka badan 140,000 oo ku shaqeeya koronto wasaaradda gaadiidka oo hawsha loo xil saaray ayaa iyadu waxay wada dadaalo kala duwan waxay dhiirigelinaysaa ganacsatada ayagu soo dejiya gaadiidka ku shaqeeya korontada gaar ahaan kuwa waliba gaadiidka oo furan keena gudaha isla markaana ku rakiba tusaale ahaan hadii gaadiidka ku shaqeeya korontada gudaha wadanka ku rakibayso iyada cashuurta laga qaadayay waa boqolkiiba eber balse hadii asaga oo qayb xirxiran qaybna furnaad keenayso waa boqolkiiba 15 oo cashuurta kastamka majibriga sababtu maxay tahay saan la socono wadankan Itoobiya waxa uu dhaqaale badan ku bixiyaa shidaalka iyo waliba saliida tusaale ahaan sanadkan aynu ku guda jirno wadanku wuxuu u baahan yahay lacag dhan 4 bilyan oo dollar si uu soo geliyo shidaal taas si looga badbaado isla markaan lacagta adag ee ku baxaysa soo dejinta shidaalka ayaa waxay dawladdu xoogga saaraysaa in wadanka gudihiisa lagu adeegsado gaadiidka ku shaqeeya korontada hadii ay noqon lahayd gaadiidka dadweynaha iyo waliba kuwa raaxada gaar ahaan kuwa aan soconin masaafooyinka aad ka u dhaadheer siiba kuwa socon kara 500 kilomitir 200 kilomitir 400 gaar ahaan kuwa ka dhex shaqeeya magaalooyinka electric makiinooyin baasramatost wasiiru dowlaha wasaaradda gaadiidka iyo saadka dalkan Itoobiya Baro Xasan ayaa waxa uu sheegay in dawladdu ay xoogga saarayso sidii loo soo dejin lahaa ama dalka gudihiisa loo kani lahaa gaadiid ku shaqeeya koronto isla markaana wadanka ay ugu badbaado lacagta adag ee lagu soo gelinayo gudaha wadanka shidaalka iyo saliida wasiiru dowladdu waxa uu sheegay intan iyo markii la bilaabay hirgelinta qorshahan la maray sanadkiisii labaad isla markaana ilaa ay haatan muuqdaan natiijooyin wanaagsan oo muujinaya in qorshihii la qabtay in ka badan wadanka gudihiisa la soo gelin karo waxa uu sheegay in meelo badan oo wadanka kamid ah gaar ahaan Addis Ababa waqti xaadirkan laga adeegsado gaadiidka dadweynaha oo basaska ah iyo waliba gaadiidka automobilka loo yaqaan xaragada kuwaas oo dad badan ay door bidaan waqti xaadirkan inay soo iibsadaan ama qaataan marka loo eego kuwan ku shaqeeya shidaalka oo iyagu kharash badan gaar ahaan dhanka dayactirka ayaa waxa la sheegay gaarigan ku shaqeeya korontadu inuu yahay mid ku wanaagsan marka loo eego kuwan ku shaqeynaya shidaalka kaliya dayactirka aad bixinaysa ayaa waxa uu yahay dhanka dayactirka taayirada iyo breega ee wixii lamida halka gaadiidka ku shaqeeya korontada ayaga mar walba tahay in laga bedelo saliida iyo waliba qalabka kale ee muhiimka ah gaadiidka korontada ku shaqeeya iyagoo dibadda lagu soo rakibay hadii gudaha wadanka la keenayo kaliya qofka keenaya waxa laga rabaa boqolkiiba 15 oo cashuurta jibriga hadii si buuxda gudaha wadanka loogu rakibay gaadiidkaas lana keenayo isagoo furan waxa cashuura haba yaratay laga ma qaadayo aanka noocan waxa dawladdu qaatay waxa weeye waa in kor loo qaado tirada maalqabeennada ku dhiiranaya inay gudaha wadanka keenaan gaadiidka koronto ku shaqeeya korontada haddaba talaabadan dawladdu ay ku dhintay cashuurta laga qaado gaadiidka ku shaqeeya korontada ayaa waxay kor u qaaday maalqabeennada dareynaya inay caasimadda iyo goobaha kale wadanka ka furtaan goobo lagu rakibo gaadiidka ku shaqeeya korontada iyo waliba inay dadweyne badan ku dhiiradaan adeegsiga gaadiidka ku shaqeeya korontada goobaha ku dhiiraday inay gaadiidka rakibaan ama lagu farsameeyo waxa kamid ah balaakinda garashka lagu magacaabo waxyaabaha ay ku dhiiradeen waxa kamid ah marka laga soo tago lacagaha adag ee ku baxaya gaadiidka caadiga in ay wax ka qabanayso ama wax ka taraysa gaadiidkani isbedelka cimilada kaasoo dhibaato weyn ku ah wadankan Itoobiya iyo wadamada kale soo koraya in la adeegsado tamarta loo cusboonaysiiyo ee korontaduna qayb weyn ka qaadanayso in la dhimo isbedelka cimilada sanad walba ka dhaca wadankeena isla markaana keenaya abaaraha iyo waxyaabaha kale ee dhibaatooyinka ku ah dhaqaalaha wadanka እዚህ ፋብሪካ ውስጥ ሁለት አይነት ምርት እናመርታለን garaashkan waxaanu ku sameynaa laba wax soo saar mid waxa weeye gaadiidka ku shaqeeya korontada oo kaliya gaar ahaan modelka 2023 oo halkan aan ku dhaxal xidhno 218 minibus oo ah kuwa gaadiidka dadweynaha loogu talagalay isla markaana midkiiba uu leeyahay 15 kursi ayaanu hadda rakabaynaa kuwaas oo طبعا كشقين دونا مقالة Addis Ababa iyo waliba magaalooyinka kale iyo waliba sidoo kale in xafiisyada dawladda iyo wasaaraduhu ay sarfisahaan u adeegsadaan kan waxaan keenay iyagoo daadsana halkan ayaana lagu rakabayaa mid walba waxaan arkaysaa waxoogaa kadib gaadhiga
oo xiimaya oo halka ka baxaya በአንጻራዊነት ቀደም ሲል ስንጠቀምባቸው ከነበሩ ተሽከርካሪዎች gaadidka hadda koran adeegsanayna ku shaqaynayay shidaalku way ka qiimo jaban yihiin kuwan korontadu marka laga reebo xogaa dayactir oo dhanka taayirada iyo brake mooye iyo waliba hadii dashil uu ku soo gaaro oo waxyaabaha qaar dhanka jambiga iyo waxyaabaha noocaas oo dhaawac ka soo gaarina dayactirta mooye wax kale oo saliid iyo biyo iyo aad ku shubaysaa haba yaratee ma jiro gaadhiga waa galaysaa waa dhaqaajinaysaa wadankan Ethiopia waa wadan maartay hodan ku ah tamarta cadceedda ee solarka iyo waliba muxuu ahaayay tamarta leerka taasina waxay noo sahlaysaa in halkii gaadiid badan oo ku shaqeeya shidaal aanu ka soo gashan lahay wadanka gudihiisa in aanu dhirigalno soo gelinta iyo rakibaadda gaadiidka ku shaqeeya korontada mashruuca gaadiidka ku shaqeeya korontada oo loo xil saaray wasaaradda gaadiidka iyo saadka ayaa 2 sano u dambeysay waxay wada dadaalo kala duwan oo kor loogu qaadayo maalqabeennada danaynaya inay wadanka soo galiyaan isla markaana gudihiisa ku rakibaan gaadiidka korontada ku shaqeeya iyo waliba dadweynaha danaynaya inay iibsadaan isla markaana ay ku wataan magaalooyinka weyn ee dalka gudihiisa